بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال وان سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام وتحية من الله سبحانه وتعالى عليكم. سلام إلهي حقس هايدين كسو سلامه، ملائكته هايدين سلامته، أهل خيرك هايدين سلامه، شر يا شيطان يا بلايو هنغا حجابه إلهي سبحانه وتعالى إلهي هنغا إلاليو. ما أنتو حاندين هيا برنامج عصب برنامج عصب واي وعلى هذا برنامج كان مشروع العمري. على هذا مشروع العمري وحواي مشروع النولات، واي مشروع هذا للنوشة هاي ومدنا تكون نولين كرتو ملاذا مشروع ملاذا waxaad hirgeliso ma leedahay, wax maanta aad ku fikirayso ma leedahay. marka barnaamijkaani wuxuu quseeyaa dhalinyarada aqoon-yahanka ah, wiilal iyo gabdho isugu jira, dhalinyarada dugsiyada sare, jaamacadaha, aqoon-yahanka iyo cid walba ka faa'iideysan karta. marka waa mashruuc العمري la yiraahdaa, waa kitaab qoran waaye, kitaab qoran weeyaan. kitaabku waxaa la yiraahdaa mashruuc العمري, waxaa qoray دكتور مشعل ابن عبد العزيز الفلاحي nin la yiraahdaa. waa nin دكتورة waaye oo xagga ku takhasusay shariicada islaamka, متخصص في الشريعة الإسلامية، متخصص في الشريعة الإسلامية ayaa qoray. isla markaasna waa mudarrib macnaha tababare waaye. waa tarbawi macnaha xagga tarbiyada, dhalinyarada si loo tarbiyeeyo, carruurta si loo tarbiyeeyo ayuu mutakhasis ku yahay. wuxuuna ka shaqeeyaa الملتقى الدولي للتفكير والإبداع. الملتقى الدولي kulanka loo yaqaano oo macnaha kulanka caalamiga ah ee xagga fikirka iyo wax soo saarka fikirka iyo wax soo saarka للتفكير والإبداع. marka waa kitaab netka ku jira weeye, qofkii carabi garanaya, carabiga wax ku qora ama wax ku aqriya ama wax ku barta hadduu qoro uu helayaa مشروع العمري بس ku qor دكتور مشعل ابن عبد العزيز الفلاحي weeye. marka waa mashruuc nololeed waaye, mashruuc nololeed ma leedahay bini aadanka waxaad ku soo kordhinaysay, wax aad ku soo kordhiso ma haysaa, ma leedahay oo ma ku fikiraysaa bini aadanka waxaad ku soo kordhiso. marka anigoo hadda aan ku dheeraanayn insha Allah taala ayaa waxaan doonayaa inaan mashruucaas أنا أدبن جعلت كتاب كسمر كان أركي لأنه أنا صاحب المشروع سوما أو مشروع كوفي كيريا معركة سائل عن ومدة وكانوا أنا أيام كوفي كيريا سوما مركب مشروع عنه مشروع وارح أو ليرادو ليف ستيديس بروجكت ومشروع هذا كل النول أو كوفي كيريسي oo bini aadanka aad wuxuu qabanaysid weeye. marka intaas baan rabaa inaan macnaha dul istaago hadii ala yiraahdo. marka insha Allah taala ka faa'iideysta walaalihiina si gaarsiya oo shargareeya sida la yiraahdo. marka insha Allah taala waxaan ku bilaabayaa hadii Ilaahay naga dhigo subhanahu wa ta'ala ummad islaama, bimaana anta muslim wa mu'min tu'minu bi arkaan al-islam وأركان الإيمان
marka ilaahay wuxuu naga dhigay ummad islaam ah oo mu'miniina macnaha mu'min waxaad ku noqonaysaa idaa kunta tu'minu biarkaani liimaan muslim waxaad ku noqonaysaa idaa kunta تعتقد markaas hadaad ictiqaadinaysid biarkaani liimaan wa tacmalu bimuqtadaaha markaas muslim baa tahay mu'minna waa tahay marka iimaanka iyo islaamku waxa weeye waa akbaru nicmatin cala al-itlaaq wa bacda al-khalq marka nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siinayo marka uuna abuuray kadib oo cunto na siiyey oo caafimaad na siiyey ma arkaysaa wax nicmada ugu weyn markaa kadib waxa waaye waa nicmatu lislaami waliimaani walhidaaya afaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dhulumaati laysa bikhaarijin minha marka sheekha kitaabkan qoray waa kitaab aragtiyo ayaan ka dhiibanayaa laga yaabe ma arkaysaa ilaa 3 mar inaan macnaa 3 qaybood inaan u qaybiyo ayaa laga yaabaa ama qaybta koowaad ayaa maanta qaadanayna insha Allah taala markaysa marka kitaabkaas waxa la yiraahdaa mashruucul umri la yiraahdaa waa mashruuc umrigaada waxa ay alla noolaanaysid kaba soo qaad waxa la yiraahdaa tusaale ahaan cudurka la yiraahdo AIDS-ka wal iyad billah AIDS-ka iyo cudurada sida COVID-19 oo wax loo dhinto oo wax qofku la noolaanayo marka AIDS-ka aad iyo aad waagi hore macnaha la dhihi jiray waa cudur halis ah oo qofku uu la nool yahay ilaahay baan ka meengalaynaa marka AIDS-ka waa cudur aad iyo aad u xun oo qofka kama haro ilaa uu qabriga uu ka geeyo kama haro marka mashruuc adiga aad la nooshahay sida oo kale ma jira oo adiga aad doonaysid ummadda inaad u soo gudbisid ma arkaysaa ood la nooshahay oo ilaa aad ka dhimatid aad ku fikiraysid ma jira ha iyo maya marka kaabaan yaraa xoogaa dul istaagayna insha Allah tacaala marka kitaabka ninka qoray waxaa la yiraahdaa waan idin sheegay مشعل ابن عبد العزيز الفلاحي يا ليرادا marka waa iska soo koobaya kalimaad muqtadafaad ah kalimaad yaro soo ururiye ayaan ka soo qaadanaya wuxuu leeyahay alxayaatu macraka ya noloshu waa dagaal joogto ah qofkii fahmi kara marka maadaama dagaal ay tahay dagaalkaas natiijadiisa goorma soo baxaysaa ayuu wa ta'ti an-nataa'ij yawm al-qiyamah nataa'ijti dagaalka aad u gashay waxay soo baxaysaa ama la helayaa natiijadeeda maalinta qiyaamaha maadaama anugu muslimiin aan nahay oo mu'miniin aan nahay qiyaama ayaa jira yawma yaquumu an-naasu li rabbil aalamiin markaas qof kasta ilaahay bay soo hor istaagaysaa alladhi khalaqaka fasawwaaka fa'adalaka fi ayi suuratin ma sha'a rakkabaka markaas waxa culimadu waa kuwa maalin walba noo aqrinayaan oo khudbooyinka muhaadaraadka waxa maalin walba qofka muslimka marka maalin waxa jirta lala xisaabtamayo oo wixiisa dhan maalin laga xisaabinayo ayaa jirta oo la yiraahdo maalintaas marka waxa weeye iqra kitaabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba waa maalinta natiijada soo baxaysa natiijada dagaalka maalinta natiijada la gaaray waxa weeye iqra kitaabaka maalinta lagu yiraahdo kafa bi nafsika kitaabkaadi laga qoray markaysa صحائف الأعمال أقري نفط أهانت هذا آخر مجرى مالتس قف أنا وحقرك المجرى مجرى مالتس قف جاهلة مجرى قيامها مجرى قف جاهلة مالكيسا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك هذا كلقى أقرصو مالكيسا وحكو قرنا وذوقتها مالكيسا كفى بنفسك اليوم هذا حسابنا يا ماركة مالتس ماركيسا qofkii xisaabtiisu ay fiicnaato jannadii uu jiraa qofkii kalena meesha kale uu jira waa la garanaya marka qofka mu'minka ah oo mu'minka dhabta ah waxa waaye suluugiisa ayaa iimaankiisu uu bedelaya maadooyinka la joogo iimaanka aan ilaahay aan rumaysanahay subxaanahu wa ta'ala suluugaada ayuu bedelaya dhaqankaada ayuu bedelaya iimaankaada ayaa suluugaada bedelaya marka haduu bedelo muxuu ku gaarsiinaya yab'athuka ala badl al-ma'ruf ma'rufka dadka inasiis
markaysa si tilqaa'iyan ina usiis markaysa wastibaaq alkhayraat iyo khayraadka inaad u tartantid marka tartan ina gashi tartan in la galo oo khayraadka loo tartamo markaysa marka mashruucul umri yuu ku socdaa fariintan ay ku socotaa markii fariin waaye mashruucul umri waxay ku socotaa wiilal iyo gabdho الذين يتأهبون لصناعة المجد ويطمحون إلى أمنية كبيرة ذاتك أديار قروبية إن يسميان مجد لصناعة المجد شرف إن لقاره شرف إن أمدي قارته ذاتك أسعاني وهذا أصحاب الطموحات يطمحون طموح وهنقلتاج ماركس هنقلتاج أو عن حدود لهم هنقلتاج بلا حدود ماركيسا الى امنيتين كيس marka asal marka maxaa waa marka mashruuc umri maxaa asal waa aayadan quraanka ay maslo waxay u tahay markaysa asal waa macnaha gundig waxa waa ya asaas waxa waa aayadan quraanka waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati an-na'im lawa ayadu fi surati ash-shu'ara markaysa nabi ibrahim bayr alayhi salam nabi ibrahim inna ibrahim kana umma kana sahib mashru' inna ibrahim kana umma wahdahu kana umma markaysa inna ibrahim kana umma markaysa qanitan lillah markaysa wala yakun min mushrikin marka waj'al muhur nabi ibrahim muhur waj'al li lisana sidqin fil akhirin ilahayo waxaad ii shahawri lisana sidqin fil akhirin macna war wanaagsan ilaahu iga reebo waay ilaahu arab wanaagsan ilaahu umada ii mari waay dadka dambe iga dambeeyo dhan marka cid kasta ee nabi ibrahim ka dambeysay wanaag bay ku sheegtay masiixiyiintii baa ku sheegeen oo yahuudi baa ku sheegtay alladina qaalu inna hudna yakun masiixiyiintii markaysa يا مسلمين اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ماركيسا مركا دينت أن قلنا له دينت النبي إبراهيم حنيفا الحنفية السمحة يقولنا الله سمع مركا واجعل لي لسان صدق مركا قفك إن قضى لك أمانه مركا إن تكذب إن لك أمانه وشيء غالي أهوى ولا وذهي الكريم إن له أمانه wanaag waliba lagu amaano oo dadka ahlu khayrka ay ku amaanaan waj'al li lisana sidqin fil akhirin yuri waj'alni min warathati jannati an-na'im marka kitaakili kuma usan deysani waj'al li lisana sidqin fil akhirin kili kuma usan deysani ee wuxuu ku daray waj'alni min warathati jannati an-na'im ilaahu rabbiyo waxaad iga dhigtaa kuwa dhaxlaya jannatu an-na'im جنة النعيم كونها جنة النعيم جنة برواقة جنة النعيم مركزا مشروع العمر وقص على صداقة لته إلى أصحاب الأمل ضدك يديلك وصاحبك والطموح والتحديات وتشالنج بقى انقرني تشالنج وكوري معنا لكن ويكبو ذيا بو ويكلين ويكبو ذيا ويكسي بو ذيا مركزا وكسي بودايا challenge كستو كيما تو كله وكبودايا ماركيسا waxay doonayaan inay umada wanaag u reebaan ay doonayaan inay wanaag reebaan ay doonayaan adduunkana lagu amaano aakhirana lagu amaano adduunka in lagu amaano waa wax wanaagsan wax la wada heli karana ma aakhirana in lagu amaano marka su'aal baatil marka su'aal كتاب كمان كجرناي ولا لا مشروع العمر مشروع وحواي وعمرها إلى أتكلمته أدنيد كويسي ومال المالمها كمية أتسلادها ومدى مال انت ورمدى وحمو فائدين دون تاع أتسلادها ومدى وحمو قارسين دون تاع مركا وان كشكي دون إن شاء الله وايه مركا هذا تيوري واي هذانا تيوري أهان مركا نقاضنا وحان هذانا كيني دونا dad hadda practic ahaan wax u qabtan waan keeni doonaa tusaalayaal baan keeni doonaa insha Allah marka su'aasha marka koowaad oo raba inaan idin weydiiyo waxa waaye
ما هي أيامكم مالمها هذا مركب واضح مركب ما هي أيامكم ما حديث برضو الوقرة مالمها هذا وإمسا محيين مالمها هذا أجرته إمسا سنة وأنا أركضونه مركب وهذا نوع حل سويدية ما هي ساعاتك وقت هذا وامحي وقت هذا محد كل مساء وقت هذا محد كبا بإساء وقت وصعنايا ما فردي كدير يا مخايضها يا شاه يا متى عليشك يا عن تربقشك مياد وقت هذا كل ينسى وتقول له مساء ومدى أياد وحقبتها ونفت هذا وحواض وقبانيسا واي مركب وحوري وكيري ماركيسا حسن البصري وكيري يا ابن آدم إنما أنت أيام ابن آدم مع الماء هذه مع الماء فإن ذهب يوم ذهب بعضك هدي مالين إكاب حضو مالين هدي أي بحضو مال ما هذه قار كميلها بتجي مال هدي كاب حضو مالتي لن تعود ما صلى الله عليه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ألا ليت الشباب يعود مركع ألا ليت وهل ينفع ليت وما فايسا ليت لن تنفع الندم لا ينفع شليت ما أنت بعد لا بس شليت وحبكم لي ما أنت بري ما حكوا فكري سوا مركع بري السنة القادمة ما حكوا فكري سوا مركع وكان يري وكل لحظة تمر بنا تقربنا إلى القبر مركا البريكسكستا نسمر البريكسكستا فوندا اسقاون اون كلا قادنو معناها قبري بانو سي دوانينا مركا حل سويديا إمي سنة جرتا ديل بيرادو كما سوقات هادين 20 سنة جرا 40 سنة جرا صدنا جرا هادين waxaad tiraahdaa kaliya cimrigayga waxba ka go'aya cimrigayga waxba ka sii go'aya waxba ka sii nusqaamay maalintii aad dhalatay ayaa 20 jirtay ama 40 jirtay markaas qofku markuu dhasho ayuu cimrigiisa kaamila jiraaba maalintaas ayaa Ilaahay wuxuu ugu tala galay ayuu jiraa masoo beentay maalintii aad dhimato saacadii waxay istaagtay eber bay garaacday eber ay garaacday markaas walan taud ila hadhihi alhaya noloshana mar dambe ma usoo laabanayno ya القبر اللحد تنام هناك إلى البرزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون من أما أمريكا وحويا وكيري كعب بن زهير وكيري لم يدس حكمتها كل ابن أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبي قلت سكا أخير كبير دار كأخير يا لا تأخذني بقول الوشاة لا تأخذني بقول الوشاة وإن كثرت في الأقاويل إن كمية هذا عمرنا كل ابن أنثى بانت سعادة كل ابن أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أيول قف كستا وهو يدا شيء عمر جيسو هبدا يرادو مال ما كمية أي آلة حدباء لو قادون آلة حدباء محمول وحواي والنعش كواي وهاندوشا ميت كلو قادون كل ابن أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول مركزا واكا مركز ما دام اساس اي تحي سؤال كانوا كويدينه وحواي دا قلين بوك حتى سوقا تحت وسويديستي في عنا لا غورمي دلتي يا وسؤال واد قرنيسا انا وان قرنيا تاس ما من البديهيات كميت هاي لكن وحال سويديا غورمي دب ودلتي goormay dhab u dhalatay ama goormay dhab u dhalanay si dhab aan u dhalanay maalinta dhab aan u dhalanay waxa weey waa maalinta mashruucayna aan helnay saaxiib mashruuc saas uu leeyahay maalinta mashruucaada aad heshay ayaa dhab u dhalatay
maalintii mashruucaada aad heshay ayaa dhab u dhalatayba ka hor ma aadan dhalan wax jira ma aadan hayn waayo haddana su-aasha kale waxaa waaye goormee dhimatay waxaad dhimatay marka aadan mashruuc lahayn marka bilaa mashruuc markaad soo istaagto halkan markaad soo istaagto waad dhimatay mana is ogid mana aad is ogid marka waxaa la yidhaahdaa yabna aadam ولدتك أمك باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا يوم موتك ضاحكا مسرورا ابن آدم هو إذا وحكوا رشاده أويي دتكن أي قسليان ودتك درسك أي قسليان مات سميستي مالنتا ماركيسا أي أوييان ومالنتا أدمتين سي أدون قوتي qof faraxsan oo qoslaya qof faraxsan oo macnaha marka dadka ay ku ooyayaan macnaha qofku hadduu dhinto waa loo ooyaa waa la tacsiyeynaa maalin kasta imisa loo tacsiyeynaa tacsiye facebook lagu soo qori hebel waa dhintay xagga ku dhintay gaari baa jiiray macnaha si walba ha ku dhintay qofku waa dhintay maalin buu waa la dhimanaya maalinta waa lagu ooyaya لكن ما تصدق قص ليس ما كيسا ما تصدق قص ليس ما كيسا سورة دواء كجرتا في سورة ويل للمطففين كجرتا دمات كذا ما كيسا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ما أدي قص ليس يضحكون معناه ضدك واسك عادي مقالة الدنيا دي بقصلان أي دنيا بقصلان الدنيا دي بقصليانو markay shahwad cabayaan markay dumarkooda la ciyaarayaan la faraka ciyaarayaan waa kuwa iska qoslayo oo aad iyo aad macnaha isaga qoslayo laakiin qofka mu'minka adduunyada ku qosli mayo wuxuu ku qoslayaa aakhira buu ku qoslayaa waxa waaye macnaha tabki huna wa litadhaka hunak ama idhak huna litabki hunak ama halkan ayaad ku qosli si halkaas aad ugu ooydo ama intaad ku ooyi si halkaas aad ugu qososho waa ka marka qoslku waa isfiican yahay dhoola dilaac iyo ma arkaysaa inaad faraxday inaad macnaha waa fiicanta laakiin qoslka sax waatan ilaahay quraankiisa ku yiri falyadhakuu qaliilan waliyabkuu kathiiran jazaan bima kaanu yaksibun waaye marka su-aasha kale waxay tahay وحواي مدام مشروع العمر وجرو أديبو ما دمتي مسوى نواشا مركا يا صاحب لتا هدنا تصاحب المشروع يا صاحب لتا هاي وصاحب المشروع ماركيسا وأديو مروا با إن مشروع سمي ستيد ومشروع عودة كو معناها ديري قلنا يا إن لتا بانتا بسيط ولا قبتيد ماركيسا مركا سيدي جاوبت بقى هرأي نكون شيء الولادة الحقيقية هي اللحظة التي وجدت مشروعك اللحظة التي وجدت مشروعك الولادة الحقيقية ما لنت أدلتي وما لنت أد مشروع عادي هذا الشيء ما أنت سأدلتي جاء مركا وتفرح الله ريبان ربا مركا إذن درنسيو وحاجرتي نيل يراد محمد عبد الوهاب ومدحوينها مامور goboleedka Hirshabelle محمد عبد الوهاب تعرفونه جيدا الكل يعرف مامور goboleedyada iyo wad garanaysan marka ninka odaga ah ayaa bishii Agost ayuu wuxuu ka qayb galay shir ay lahaayeen markaysa dhaqanka iyo waxgaradka beesha mudulood ay lahaayeen ayuu ka qayb galay waad garanaysiin Soomaa waad dhageysateen Soomaa odaga maxamed Cabdi Waare markaysa shirki markuu qayb galay waa lagu soo dhaweeyay inkastoo beesha asii uusan u dhalan markaysa marka maxamed Cabdi Waare beeshii uu la hadlay beesha mudulood ku shiraysay markaysa mawlici Macallin Nuur الله يرحمه معالي النور كان صاحب مشروع الناس ما يعرفون معالي النور ضدكم قرنيا معالي النور إمس الدكسي ولها إمس الدكسي أيولها إمس مساجد ودس إمس أيو وقفي يا معالي النور
markaysa aan waan arki jiraa soo kitaab quraana markaysa sida kilkisha uu haysto markaysa dharkiisii iyo zayigiisii waa la garanaya macallin nuur allah yarxamo macallin nuur dadka dhaway waa dad badan garanay macallin nuur marka maxaa cabdi warre dadkii buu la hadlayaa wuxuu yiri waa xasuusan ani marka maalintaas baan aad iyo aad ugu baraarugay macnaha ninkan waa nin gentleman waa ninkaas nin caadi ma inaba caadi ma maxaa cabdi warre wuxuu yiri dadkii beeshii buu la hadlayaa marka dad badan baa fadhiya cali mahdi baa fadhiya على جديا فديا عد والله فديا odayaashii sheekh shariif fadhiya waxa fadhiya sanu maleynay macnaha iyo xasan sheekh ya fadhiya marka dadkan buu wuxuu tilmaamay wuxuu yiri subax walba qofku markuu soo kacayo wuxuu isku eegaa yiri muraayada ayuu isku eegaa muraayada markuu isku eego hadii indhaha fiish uga jiro iska saaraya si fiican buu soo labisanaya tay buu soo xiranaya ma sha Allah soo ma arka sigadan ma arkaysa gaari haduu leeyahay wax walba maalintaas waxa waaye xaflad baa looga yeerayo waxa waa soo jackaynay uu siinay marka uu soo jackayo ayuu soo aadaya shirki uu soo aadaya marka dadkii buu hor istaagay dadkii marka kelmad buu yiri ninka marka wuxuu yiri muduladu yiri daara dhaadheer bay leeyihiin yiri hanti bay leeyihiin aad iyo aad bay waa dad aad iyo aad ganacsatayaal dad ganacsatayaal ku jira dad aqoon laha ku jira dad waa ku jira way laakiin wuxuu yiri markaysa quruxda saxda ah waxay ka muuqataa dhulkii laga yimid ayaa quruxda saxda ka muuqata ma aan muqdisho inaad dheer ku leedahay macnaha afar gaari awoodtido macnaha professor tahayo siyaasi tahayo laakiin dhulkii laga soo hayaamay wuxuu tilmaamay buule burde wuxuu tilmaamay muxuu ahaa cadale wuxuu tilmaamay macnaha magaalooyinkii dhulkii cidii laga yimid buu iyo aad u tilmaamay markaysa mahaday buule burde iyo waxyaalahaas uu tilmaamay iyo raagaceele iyo meelo badan oo dhulkii oo macnaha oo dhulkii laga yimid oo gobolada dhexe kamid ah ayuu tilmaamay markaysa marka wuxuu yiri quruxda saxda ah halkaas bay ka muuqataa weer sida dhulkaas u yaalo ayaad adinkuna u taalinay marka ninka odaga ahay waa loo sacbiyay waa loo qoslay markaysa inkastoo dad yara xogaa ay ka xumaadeen haddana wuxuu ka hadlay nolosha saxda ah ayuu ka hadlay walaalayaal marka mashruucul umri waxa waaye waa inaad ummadaada ku qabatid waa inaad goboladii degmooyinkii inaad isbitaal ka sameey kartid inaad iskuulka dhisi kartid inaad wax ka sameey kartid weeyaan ma aha siyaasi baan ahay hal ay doorto hal ay kada fulaan baan ahay kada aan ahay waxaan baan ahay marka dadkayna way baabacsan yihiin ummadii way baabacsan tahay markaysa goboladii asal ahaan laga soo jeeday markaysa oo miyigi ahaa dad yar baa ku nool dadka marka waxaad arkaysaa magaalada muqdisho waxa la leeyahay waxa ku nool 3 milyan iyo bar 4 milyan baa ku nool waa ciriiri dadkeedii bay ciriiri ku tahay meel guri ma helaysid aad degtid meel aad ka shaqeysid ma helaysid waa ciriiri goboladina way haawanayaan dhulkii Soomaaliyeed caasimadaha iyo dadku yimaada laakiin miyiga iyo baadiyaha ma laha meel laga shaqeeyo meel laga tabcado iyo ma laha meel marka mashaariic horumarineed ma laha waa iska garanaysid biyo male ceel bay u baahan yihiin ajir baa ku jira Soomaaliya biyo markaysa iskuul bay u baahan yihiin hadii iskuul leen jaamacaday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin isbitaal bay u baahan yihiin aeroboorray u baahan yihiin wadooyin bay u baahan yihiin marka waxaad arkaysaa dad baa hadda rafaad ahaan waxay u dhisayaan gobolada dhexe wado waxaad arkaysaa Guraceel iyo waxay isku xiraysaa lagu leeyahay markaysaa iyo Gaalkacyo waxay isku xiraysaa Gaalkacyo ilaa Garowe waxay isku xiraysaa Garowe ilaa iyo muxuu ahaa iyo Berbera isku xiraysaa wadooyin la dhisay loo baahan yahay mashaariic horumarineed baa loo baahan yahay marka saaxiibul fikri marka yaa mashruuc haya waay marka mashruuc lagu dhisay marka mashaariicdu way badan tahay marka hadal badan haan ma buuxsha leeyri hadal badan haan ma buuxiyo waayahay inaan ku sii dheeraado ma rabin marka hadii walaalo aad tahay bismillaah
haddii aad tahay mutacallim haddii aad tahay arday dugsi sare dhigtaa ama arday jaamacadeed ama academy ah ma arkaysaa waa in lagu fikiro waa inaan ku fikrino dhammaanteen 24 saac maalintu 24 saac maanta waa jumco 24 saac 24 saac marka waan qaybinaynaa insha Allah taala waxaan qaybinaynaa 8 saac oo la yiraahdo shaqo ama waxbarasho 8 saac waa shaqo ama waxbarasho 8 saac waxa la yiraahdaa waa la hurdaa oo yara qofku bini'aadamku hurda uu baahan yahay 8 saacna waxa loogu talagalay inay free ku noqoto oo qaraabada ku soo salaantid inaad macnaha aad bulshada wax u qabatid ka qayb gashid muhaadaraad ka qayb gashid aad ka qayb gashid barnaamijyo ummadda lagu horumarinayo aad ka qayb gashid baa loogu talagalay marka 8 waa 24 saac marka dadka Soomaaliyeed in badan oo kamida illa man rahimallah ilaahay qof uu naxariisto mooyee 8 saac ama wax buu shaqeystaa ama wax buu bartaa waa 8 saac waa la ogan yahay hatta 10 saac shaqeey la baas xoga yarna waa la hurdaa oo habeenkii iyo waqti lamida waa la hurdaa laakiin 8 saac oo firiitiidka la yiraahdo ayaa daa'ic ah الوقت الضائع وقتك ضيعان وعن تربقشك اللي قول لاي واخرا لا سويدينايو ما arkaysa waxaan soo ilaabay aayadii ahayd ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلهي القرآن كيسو حكوري في سورة ياسين آيات اسمها سو إلاوي ونكتب ما قدموا وحان قرينا ماركيسا ونكتب ما قدموا قف كستوحو تقديمي وبالشدة ولسو هور استاغي وعمر جيسي وكل لاي إلهي وقريا سبحانه وتعالى ملائكتي وقريس ونكتب ما قدموا وآثارهم يراتكي لغتبي رات ماركيسا ضع بصمتك أي هذا عربته صور كمال صار صور مش أثرت هصوب حضر صور كمال صار ماركيسا راتكي إنه صوب حيا لدونا يا كتكتي معناه قفك وحدتك وحبر يرات بوكتي وحبر شدو لكن ضدك معلم كقفك قفك الداعية قفك الشيخ ماركيسا هدي أوسن وحو قادنا يو معناها عمل كيس وحقوق قادنين ما أركيسا أجر بوكيليا هدو حقاتنا أجر بوكيليا لكن وحافي عقفك حقوق قادن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين معناها علماء أما أنبياء إلهي سبحانه وتعالى نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا دعاة اسمرك وحباد العقد مقادة جرم وحبما العقد مقادة جرم وما سألتكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وحبا إذن ويدي سماء قاتا خذوا عني يا قاتا مركا معلنك صاحب الرسالة وضطبوا وحبريا مركا عدو الله $100 عدو قاتوا معلنكو ده لبدي كلنا ملهلايو مجتمع bulshada ma helayso 200 كلته waxa way waa gift waa free dadka aan ba ku sadaqaysto waa sadaqa marka waa loo qoraya maalintaas waa loo qoraya macalinka waa loo qoraya marka macalinka hadii uu mushaar ku filan haduu waayo inuu shaqada ka taga maaha asgarigu hadii mushaar ku filan hadii uu waayo inuu shaqada ka taga maaha معلك الجامعة هذه ومشارك فلان وواين وكتجمع ومشروع العمر ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلهي بقى قرية سبحانه وتعالى ضدك وتكتب وناك سمع مركا هكتيجي مركا معلك هو صاحب الرسالة وصاحب المشروع مركا قفك وإنه كفكره سنة كوا ستحبق للحدة المعلومات سمع محاو مدو قبتي مشروع هذا المحور مركا سؤال شكله وحنا قانسا ماذا في أمنياتك سؤال شكله ما همي هذا المحور ما حكو فكريسا قفوا حكو فكريا وحبرشة نسيوته وحبرشة ماستر ديجري PhD ديجري ماركيسا أيانو باهنا قفوا دونا يا إنه حلوان نقضوا قف سياسي إنه نقضوا ماركيسا قف مدحوين إنه نقضوا قف وزير إنه نقضوا قف إنه معمولة دقمة نقضة
qof inuu shaqaysto ma arkaysaa marka su-aasha kale waxay noqonaysaa marka ma u bedeli kartaa fikirkaadii wax la taaban karo su-aasha waa taa fikirkaada ma u bedeli kartaa wax la taaban karo macnaa dadka wax muu tari kartaa ma arkaysaa marka arrinta kaleeto dadku waxbay isku qaldaan marka mashruuc ulcumri ma ahan inaad suuqa bakaaraha tagtid suuqa bakaaraha suuqa ugu mashquulka badan waay suuqa ugu mashquulka badan waay inaad bakhaar ku leedahay muxuu ahaa allah mustacaan dukaan yar inaad gaari gacan inaad mooto bajaaj inaad waxun ka shaqayso taas waxa waaye waa risqigaadii oo quutulyoomkaadii waa kaas waa quutulyoomkaadii waa xaaskaadii carruurtaadii waxaad siinayday waa kaas aan isfahamno horta mashruuc ulcumri lama yiraahdo ma arkaysaa suuqa bakaaraha ayaan ku leeyahay macnaa bakhaar ku leeyahay oo bankiga amal baan u shaqeeyaayo waxaan shirkadda hormuud baan u shaqeeyaayo dahabshiil aan u shaqeeyaayo shaqaala baan ahay iyo waxaas maaha mashruuc ulcumri maa kaas waxa waaye waa risqi adiga aad raadsanaysid waaye waa raatibkaadii waa musharkaadii waa mushqaayadaadii waxaad raadsanaysid waaye kaas waxa dhan oo la isku haysto waxa waaye markaa soo shaqaysata kadib ummadda maxaa u qabataa waa aan isfahamno horta ma isfahamna ya jamaaca maasha allah soo dhawaada dad badan baa ku jira baaraka allahu fiikum allah idin barakeeyo waayahay markaad iskuulka ka timaado kadib markaad jaamacadda ka timaadid kadib oo macallinaad tahay ardabaa tahay kadib maxaa ummadda u qabanaysaa ummadda maxaa u qabataa ma iska seexataa mar kale waqti daa'ica miyaad ka shaqaysaa waqtigaa miyaad maaragtay cantara baqash kusoo halaysaa fadhi ku dirirka makhaayadaha mase waa cindaka mashruuc hal cindaka mashruuc ma haysaa waa marka waxaa la yidhaahdaa kunkii qof haya hal qof baa ka fikiraa layidhi kun de waa dad yar maaha ayaa laga yaabaa hal qof inuu ku jiro hal qof inuu ku jira laga yaaba kunkii qof inuu hal qof ku jira laga yaaba sidaa u fikiraya ma arkaysaa ummaddu way noolaan lahayd haddii kunkii qofba hal qof laga helayo ma arkaysaa way noolaan lahayd waayahay marka ummaddu waxay u baahan tahay alumma bixaaja ilaa rijaalin sadaquu ma caahadu llaha calayh ma arkaysaa dadku ummaddu waxay u baahan tahay ilaa rijaal marka la leeyahay rag keliya maana dumarna way ku jiraan rijaal arrujuula raganimadu ma ahan qof kasta ee gar leh ee shaarib leh dumarku garna male shaaribna male ma arkaysaa marka rujuuladu ma ahan inaad dakar tahay ma aha dakar inaad tahay lab inaad tahay ma aha waxgal inaad tahay qur-aanku saas buu tilmaamaya min almu'miniina rijaalun markii la leeyahay ma arkaysaa wanisaa'una way ku cadfantaha way ku jirtaa waa laga fahmaya liannahu sheekhu culama ayaa wuxuu qoray rijaal xawla arrasuul asxaabta الرجال حول الرسول سيدا كلاتو ما arkaysa nisaa ayna ahayd malayna حول الرسول oo qoray nisaa حول الرسول saxaabiyaadkii waaye iyo saxaabti marka culimadii muslimiinta ah imaam Shaafici imaam Ahmad ma arkaysa culimadii kulluhum ma arkaysa ragna way lahaayeen dumarna way lahaayeen ma arkaysa ahadiithii ka warinaya Aisha kamida Hafsa bint Sirin baa kamida ma arkaysa dumar iyo rag iyo dumar waa isku jiraan marka rijaal marka lagu leeyahay ma ahadullah alayh ilahi balla ballamaya way ka run sheegayaan ma ahadullah alayh faminhum man qada nahba waxa jira qof ku dhintay oo ku geeriyooday marka asoo ku taagan ومنهم من ينتظر iyo qof sugay wama badalu tabdila ballanki ilahi ka biximaya marka dadkaas baa loo baahay marka dadkaas marka waxa lagu yaqaan la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa an mashakil al umma qadar marka la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah marka tijaro ganacsi way wa baa'i mushtari qofku wuxuu aadaya dibadda buu aadaya Bangkok iyo Shiinaha iyo Malaysia iyo meelahaas baa la aadaya Indonesia iyo Jarmal iyo meel Yurub iyo meel badan baa qofku ka soo ganacsanaya wax uu ka soo baranaya marka mashakil al umma qofka nabi wuxuu alayhi salatu wasallam man lam yahtam bi umur al muslimin falaysa minhum qofku waa inuu ka murgo ummadda waa inuu ka murgo laakiin
أنا ما جرت أنا وحلو بها نحن أي الله بها نحن أي الله بها marka qofku waa inuu barto annaga waxaan u baahanaa sidaan annagu dadkan baan wuxuu tarnaa annaga mashruucan baan leenahay waa inuu qofku dhigi karo marka dadka aad iyo aad u muhiimka u ah in la soo qaato oo tusaalaha nool loo soo qaato waxaa kamid ah Xaawa Cabdi ma garanaysan Xaawa Cabdi ma nooshahay ma dhimatay Allah yarxam way dhimatay mar dhow bay dhimatay bishii August inay aadaan banaanay mar dhow marka Xaawa Cabdi waxaa la yiraahdaa halkay wax ka bilowday halkaysa ku dhimatay markaysa mashruuc bay lahayd ummadda in loo gargaaro mashruuc ummadda loo gargaarayo bay lahayd ummadda loo gargaarayo markii la qaxay ayada ka tilmaamaysa oo waraysiyadeedu markaad dhageysataan markaysa 93kii iyo 94kii oo warkii dagaaladii sokay markii Soomaaliya ka bilowday ayadoo qof waxay ahayd maartay aqoon la ay ahayd dibadda wax ku soo baratay markaa waxay istiri ummadooda ku sugaysaa Xaawa Cabdi دكتوريسا حاوى عبدي الله يرحمه markii saxal mashruuc bay ahayd marka ay dawladda magaalada Muqdisho waxay ka samaysatay isbitaal yar bay ka samaysatay umalayma kulay anigu ma ana salaamin uma tigin laakiin markaysa laakiin ghaniyan aan ta'rif in way ka weyn tahay qof dadka loo sheego way ka weyn tahay markaysa marka kulay uma inta la gelin markii hore inay dadka wax u qaadato dadka in rabtaan cagabarki dadkii uu gargaarto dad baa wadooyin ku dhimanay dad baa fuuq baxay dad baa dhibaato haysatay markaysa صاحب المشروع بيت حاوى عبد الله يرحمه مركزه ما حاوى عبد اسبتالك الى هذا ونولي مركزه مركوا ونكتب ما قدموا واثارهم ان شاء الله ما نرجو لها الخير خير بنو جيننا ولا نزكي احدا على الله الهي عندنا ظهير ما انه هذا البافعنا ديما الهي باسا وحنا اوك مقلت مركا حاوى عبدي وكلته waxay dhalatay 1947 waxay dhimatay 2022 اساس ما مالي بيش اغوست مالاسن اذا مالي بيش كورس بيه الله يرحم الله ونحرس صاحب المشروع بيه marka todobaad isdexjir bay ku dhimatay Soomaa todobaad isdexjir bay ku dhimatay markaysa marka qofkaas oo kale marka Xaawa Cabdi markaysa la Xaawa Cabdi diblaawa leeyahay qoys tabarir bay ka dhalatay markaysa qof marka waxa laga yaabaa inuu yiraahdo markaysa mashruuc waan keeni lahaa laakiin cid ugu taageeraysa ma leh fundraising ma loo baahan yahay fundraising fun بالوباين fun بالوباين fun يا مال قلنا مشروع وهاي اسبيتال با وحو باهي مارتا ان laga dhiso xara dheer اسبيتال waxa raba laga dhiso galguduud gaalkacay garoowe hargeysa boorama markaysa kilinki shanaad macna kismaayo bu'aale markaysa baar dheer meel badan مقدشو مالك كاستا مركز مشروع بالربع لكن ماله مشروع عد يفان جيرين زمان مركا دلينيرada waan ognahay markaysa dad baa saaxiib mashruuca nin baa shaqo waayay marka wuxuu soo qortay magaciisa iyo wuxuu ku soo qoray board ay ku soo qoray boardkiibu jidka la soo istaagay waa qof aad maskax badan waxa gentleman waa kaas intelligent waa qof aad maskax badan waa kaas markaysa waqti oo macnaha shaqo la'aan ay jirto shaqo raadsanaya qaab uu raadinaya inaba aan caadi ahayn markaysa magaciisu soo qoray wadada la soo istaagay waxa la yaabaa qof oo naxariis ku jirto inuu yiraahdo kaalani ii shaqay waa saaxiib mashruuc waa qofkaas saaxiib mashruuc waa mashruuc uu haysta markaysa marka adduunka hadda waxa lagu tartamayaa coronavirus ma dhicin yaa daawo soo saari kara adduunka tartan baa ka jira shirkadii baa tartamaya shirkadii caalamiga baa tartamaya markaysa ruushku wuxuu leeyahay aniga keenaya maraykanku wuxuu leeyahay ana keenaya jarmal ana keenaya maraykanku ana keenaya tartan baa lagu jira marka dhalinyaradeenu tartan ma geli karaan waa mashruuc ma hayaan hadda maanu maleemahan Soomaaliya laga soo saaray muxuu Soomaaliya qalin soo saari kartaa leer qalin soo ma saari karaan leer washad qalin kuma taala leer markaysa wadan caynkaasa oo dhibaatadaas mashaakilkaas ka haysto oo macnaha male Ethiopia iyo Kenya waa isku filayn noocan ma siibay isku filayn annaga markii hoos noo dhigay maanta waxa Facebook ku soo qoray
waxaan kusoo qoray saacada ka hor baan waxaan kusoo qoray maxamed cabdi xaashi macnaha gudoomiyaha aqalka sare iyo muxuu ahay sheekh maxamed idriis sheekh maxamed idriis ilaahay khayr ha siiyo jazaahu allahu khayran inta ummadda uu la hadlay yaa ما عددنا ولا حساب صوتت كل هذا لكن كأنه هذا محمد تراي ما أنت هذا محمد تراي مركب علماء نترك ذا ويفعنا لها إن مشروع عمد وكيانان هذا محمد تراي هذا هو في عينه أحاديث بالدليل عايدة بالدليل إنجازات ومضى كلا أي هلان بالاكيني مركز تركي محوها ماليزيا مال بدن سداواي لكن قفكوا وإنه كان مشروع عن بان مضى وهيا مركز مشروعان لكن هذا الهان ما بيوحيو حتى أنا واحد كهذا إنه حواي هذا المشروع معا مشروع حددتك عدوه يسيد إن هذا لسه استكتدوا أما كل أما كنا على هذا عندك إذا كان عندك مشروع فلتقف أمام الناس إذا كنت إمامي فكن أمامي أيوه هذا الإمام كي يجي هورس استك هلو أركو ماركسا هذا الإمام تهرس استك هذا تكون حسن كهرد سوار استك لكن هذا الكلية لكن هذا الكنا مرة قارب وحكف في عينه هذا الله أنت أيوه كف في عينه مركب علماء داسي الشيخ محمد إدريس وان سلامة يا أصحابتيس كل وان سلامة يا شيخ وان جعلها هل كان مقالة الموصى بوضي وحواي وداعي متفرغ وإن شاء الله مركز شيخ في عن مركزة لكن الشيخ محمد إدريس وكلاته وحن أنا قلت على الله وعلماء اللميدا يا الشيخ عبد الرحمن بشير وكلاته إن أمته هور استاجان إن أدتك قيادة ونقدان سهور استاجان وير هذا وحن بان قبانينا تدك هذا واحد كذا حزبية لسمينا حزبية سياسة ده بالله سمينا حزبية سياسة ده بالله سمينا قف مركز إنه حزب السياسة ده حتى سمايه أما dhalinyaradii uu tababaro oo dadkii uu sheego way fiican tahay ma arkaysaa laakiin qofku markii kaamirada horteeda soo istaago oo film iska duubo sida anoo kale hadda aanu hadlay kaleeto waxa iga fiican qofkii meeshii jooga oo miidaanki taga sa alxayaatu macraka wa kana kitaabka aan ku bilaabay mashruuc al-umr waxa alxayaatu macraka wa noloshu waa loolan قفنا كساوي عميسو كالي قف كده يسمى وحبه ملو عزومات مايا أديك تقدم نفسك نفت هذا تفكو هرمري ما ركيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولقيس مساعا مضى عهد النوم يا خديجة سومني يا قومي الليلة إلا قل مركا والله هذا يا مشاكل واسكجرا وعلماء مشكلات بايستا وسياسيين مشكلات بايستا وعدوا البوع مشكلات باجرتا واللوجي هاي مركزة لكن ماشي سنة هذا مرة منه على أي حال وعلى هذا ومن لا حلم له اليوم لا مشروع له في إنجازات الغد ومن لا حلم له اليوم لا مشروع له في إنجازات الغد قف ما أنت أنهمي لهن وضدك ما أنت أن كل رجلين دون مركزة مشروع عن لهين بري كما تيبقى لي كرا مركب وحلقته بري ما إيمان كرا معنا قف هذا أسكت سياحة ذي وضدكنا أي شقيان أي وحقب سدان مركزة بريتو مركي ومضوا أي أصوب بحان مال ونكسر مركي للتجو ووحي اللي هيكسنا يلقاره مركزة معلن تاس أدي وحملي لان واضح حتى سمع سؤال كلامك وحوالي dhalinyaro badan baa jira waan ogahay anigu oo عندهم حلم وحركه markaysa magaalada la yiraahdo Allah musta'an maxaan wilaawaya galkacyo ayaa dhalinyaro waxay ka sameeyeen library bay ka sameeyeen galkacyo ayaa dhalinyaro waxay ka sameeyeen library ay ka sameeyeen library-ga marka waa maktabad wax yaala male كتب ملأ بواق ملأ لا أقرص هذا ملأ لا تطبخ ما أخريان مكتبة الدونك وحقوهم منسان وحواي ومكتبة ومشروع واي قفكه هذه طبعا كتاب تسوي بسيط هذا مكتبة دكتيد أو صومالي أو حافظ كميدا مركزا وضن كان سويدن عند قلنا هاي
degmo kasta waxay leedahay library-geeday leedahay iskuullada library leeyihiin cusbitaalada library leeyihiin qofka jiran baa wax akhrinaya iska daaya qof iska daaya markaysan wadamadan galbeedka oon joogno laakiin Soomaaliya gaalkacay waa magaalada saddexaad baa leeyahay ugu weyn Soomaaliya markaysan oo haddana library weyn aan lahayn markaysan jaamacadii library male ardadii markaysan buugga macallinka u dhiga mooye buug kale ma helayaan kitaabka macallinka mooye buug kale ma helayaan laana dadku waxa maskaxdooda waxa waaye siyaasad iyo waxa gashay muxuu ah qabiilaysi iyo waxyaalo qurun iyo ayaa ka buuxa dadkii oo banaanka marka la fadhiyo makhaayadaha marka la fadhiyo qof ma arkaysa kitaab akhrinay buug ma akhrin joornaalada ma jiro joornaal akhrinay goor ugu dambeysay wadanka joornaala la akhrin jiro joornaala la akhriya adduunka joornaala la akhriya masar oo kale marka aad joogtid subax ala say marka soo kacday ama Ethiopia meel adduunka marka joogtid joornaala la qaybinaya joornaalo ayaa la qaybinaya joornaalku waa wixii maanta soo baxay waa dib male laakiin dadku haddana maktabadaha jiraan waa maktabadaha ayaa jiraan marka waxaan rabaa inaan sheego marka dhalinyaro badan waxaa jirta dumuuxaad leh oo mashaariic haysata laakiin amaamam aqil waxaa jira checkpoint aysan dhaafi karin baa jira sidoo kale waxaa la yiraahdaa markaysa shinnida quraanku waxaad arkaysaa markaysa waxa rabbuka an-nahl an yattakhidha min al-jibali buyuta marka shinnida wax ka fiican ma jiraan shinnidu malab bay sameynaysaa marka la leeyahay marka abaar jirto halkay malab ka sameynaysaa abaar baaba jirtaba shinnidu waa inay hesho meel ay ku duusho jawi ay ku duusho waa inay hesho meel ay wax ka soo cunto waa inay hesho markaysa meel ay wax ku sameyso waa inay hesho markaysa waa inay udug hesho waa inay makaan mulaa'im ah waa inay hesho oo u qalma markaysa ala ay xal waa in meel roob ku da'ay oo barwaaqo ah oo geeda leh oo dhir leh ayaa shinnidu malabka ay ku sameyn kartaa masaabentay marka dhalinyaradii maanta waxay qabtaan male dhalinyaro badan waxay isku dayeen inay kuwa waxay sameeyaan diyaarad isku dayeen inay sameeyaan masaabentay dhalinyaro waxay isku dayeen inay sameeyaan gawaari diyaarad inay sameeyaan inay daawo sameeyaan waxaan arkay oo kaleeto dhalinyaro isku filaasho inay guriyihii ku sameynaya muxuu ahaa allah musta'an beero agriculture beero الزراعة beero waxaa lagu sameeyey gaalkacya lagu sameeyey cadaada lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey magaalada muqdisho lagu sameeyey beero iska daa baari kalaaba la tabci laaya kuwa afgooye iyo kuwa biyo qaadeen iskaba daayo mooski baa la keen laaya mooski markaysan magaalada jooga waxaan la degan nin iiga sheekeeyay wuxuu ahaa darawal waagi xilligii nabadda darawal buu ahaa wuxuu yiri magaalada muqdisho ay waxaan ka kaxeeyay ayuu wuxuu yiri markaysaa gaari isjiida waxaan geeyay meel kamid ah caalamiya meel oo kullu markaan u badan ma safarkii ma uusan badnayn aniga oo darawal ma ahayn oo nin dhul mara ma aan ahayn xaqiiqatan marka wuxuu yiri waxaan tagnay war beer camba ku yaalo hal geed ayaan gaarigi ka soo buuxshay hal geed oo camba ah ayaan ka soo buuxshay magaaladan wala degan yaa waagi nabadii fiirade hal geed ayaan waxaan ka buuxiyay oo yiri gaarigi aan watay ma ogi inuu furki mas isjiid buu ahaa marka gaari weyn buu ahaa hadda gawaarida waqtigan hadda magaalada muqdisho maana waxaa laga qaadayaa macnaha beled weyne iyo dhulka baa laga qaaday ilaa iyo boosaaso ayaa mooski la geenaya iyo cambihi la geenaya iyo hargeysa iyo la geenaya cambihi laga qaaday macnaha shabeelooyinka laga qaaday iyo qudaarti laga qaaday ma arkaysaa iska daa adiga macnaha dhulkii ilaahay na siiyay wabiyadii iyo barwaaqadii na siiyay iyo oo ilaahay wuxuu siiyay Soomaalida sida ay sheegaan waxba ma aysan ka faa'iidin laakiin oo li faqri baa lagu nool yahay oo siyaasadii baa laga dhintay ilaahay wuxuu siiyay baddi buu siiyay berrigii buu siiyay xoolihii buu siiyay ma arkaysaa haddana waxaa leeyahay shidaal baa la soo saaraya dhulkii shidaal baa ku jira la leeyahay laakiin insaanka